Assalamu alaikum. Maanta waxaynu qaadanaynaa casharkeennii labaad qaybtooda sheekeysiga conversation. Qaybtan waa qaybta casharada baragtiiska ku hadalka luqadda Ingiriiska. Waa laba qofood bas la hadlaya. A waa qofka su-aasha weydiinaya, B-na waa qofka su-aasha ka jawaabaya. Ha ku bilaabno. A oo tusaale Ahmed, B oo Bashiir. Tusaale ayaan ka wadnaa sidaas darteed ku fahmayso. A wuxuu dhahayaa, where were you born? Halkee baa ku dhalatay? Where were you born? Halkee baad ku dhalatay? Where were you born? Halkee baad ku dhalatay? Ni waxa uu jawaabayaa, I was born in Mogadishu. Waxaan ku dhashay Mogadishu. I was born in Mogadishu. Waxaan ku dhashay Mogadishu. Aniga was born. Waxaan ku dhashay in Mogadishu. Mogadishu. Wuxuu dhahayaa, how old are you? How old are you? Imise sana jir baad tahay? How old are you? Imise sana baad jirtaa? How old are you? Imise sana baad jirtaa? B wuxuu jawaabayaa, I am 22 years old. Waxaan jiraa 22 sano. I am 22 years old. Waxaan jiraa 22 sano. I am 22 years old. Waxaan jiraa 22 sano. Wuxuu leeyahay, where do you live? Xagee baad ku nooshahay? Where do you live? Halkee ama xagee baad ku nooshahay? Where do you live? Xagee ama halkee baad ku nooshahay? Wuxuu jawaabayaa, I live in Mogadishu. Waxaan ku noolahay Mogadishu. I live in Mogadishu. Waxaan ku noolahay Mogadishu. I live in Mogadishu. Waxaan ku noolahay Mogadishu. What do you do? Maxaad qabataa? What do you do? Maxaad samaysaa? Ama maxaad qabataa? What do you do? Maxaad qabataa? Iyo wuxuu jawaabayaa, I walk. Waan shaqeeyaa. Aniga walk. Waan shaqeeyaa. I walk. Waan shaqeeyaa. Wuxuu leeyahay, where do you walk? Xagee baad ka shaqeysaa? Where do you walk? Xagee baad ka shaqeysaa? Where do you walk? Xagee baad ka shaqeysaa? B. I work in a shop. I work in a shop. I work in a shop. Waxaan ka shaqeeyaa dukaan. I work. Waxaan ka shaqeeyaa in a shop. Dukaan. Waxaan ka shaqeeyaa dukaan. I work in a shop. Waxaan ka shaqeeyaa dukaan.